بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadka Soomaaliyeed meel joogaan waa salaamayna. Munaasabadan waxaan rabnaa inaan uga hadalno ayadoo doorashada lagu soo dhawaanayo xaaladda amniga oo faraha ka sii baxaysa dadka gobolka madaxdiisa iyo shacabkiisaba waxaan leenahay sabar iyo iimaan Ilaahay uu naxariisto qabrigooda Allah u waasiyo dhamaantood inta dhimatay geerida inta la hubo oo hadda la sheego 48 waana u badanta inay ka badan tahay dadka dhaawacana inta la hubo la sheegay waa 101 waxayna u badan tahay inay ka badan yihiin marka runtii waa khasaaro weyn oo aad iyo aad weyn taas waxay muujinaysaa sida amnigu uu soo xumaanayo xilli doorashooyinkii la filayo inay qabsoomaan waxaan leenahay hay'adaha amniga iyo cidii mas'uuliyadaas ka lahayd in si dhaba baaritaan dhaba loo sameeyo si mas'uuliyadda dadkii iska lahaa ay u qaataan ama loo saaro haddaan sharci iyo nidaam iyo kala dambeyn aysan jirinna dawladnimada ma hirgeli karto marka cidii ka gaabisay mas'uuliyadaas ama lug ku lahayd dhibaataynta ama ka qayb qaadashada in loo helo cadaalad waa arrin takaliya oo looga qanci karo arrintaas intaas markii aan ka gudbo waxaan la soconaa dalka doorashooyinkan xilliga ay jiitameen waa xilligii ugu dheeray marka kullama doorashooyinku ay sii dheeraadaanna waxay abuuraysaa khalal amni ah waxay abuuraysaa dhibaatooyin dhaqaale waxay abuuraysaa dhibaatooyin siyaasiya marka in lagu dadaalo markaan inaysan dib uga dhicin waqtigeeda doorashadu taas oo aan aaminsanahay dalka inay xal siyaasiya xal bulshadeed xal amni u tahay maxaa yeelay dalkaanu nidaamka uu doortay waa nidaamka dimuqraadiga ah dadku inay doorasho xura galaan isdoortaan cidii guuleysatana lala shaqeeyo taas ayaana waxa lagu heli karaa deganaansho siyaasadeed iyo horumar iyo amni iyo cadaalad lagu heli karaa marka waxaan adkeynaynaa xoojinta iyo inaan laga weecanin barnaamijkaas siyaasiga dalkaani wuxuu soo maray dhibaatooyin fara badan oo amni iyo siyaasadeed kulligoodna waxay xiriir la lahaayeen doorashooyin marka in loo arko inay yihiin waxa ugu habboon oo dalkan maanta yaalla inay yihiin doorashada inay u dhacaan sida ugu hufan mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.